mar haddii aanu adeegayno qarankeenni oo waxaanu adeegayno dhiiggeenna iyo nafteenna aanu bixinayna ay qarankeenni yihiin oo mar aanu adeegayno bulshadeenni oo waxaanu adeegayno oo nafteenna iyo dhiiggeenna aanu bixinayna ay bulshadeenni yihiin oo mar aanu adeegayno annaga shakhsiyadeenni sida ay ku nabadgeli lahaayeen nafteenna iyo maalkeenna iyo sharafkeenna iyo cisigeenna xaggeen uga noqon karna xaqaan u diriri lahayn oo intaas nooga horreeya miyaa jira yaa xaqaan u diriri lahayn intaa nooga horreeya ma jiri haddii ay cid tahay in laga badbaadiyo diinta islaamkana waxaa in laga badbaadiyo u baahan nimankaa khawaarijta ah oo afka duubtay horta midna waa idiin sheega qof kasta ee bini aadana ee wanaag wada isma qariyo maxay isla qariyaan hadday wanaag wadaan maxay afafka la xiranayaan feere ilaahaan kugu dhaariyey ee adigu adoo waxa xaqaa faafinaya oo ummadda ilaahay diintiisa gaarsiinaya oo ummadda ilaahay waxa xaqaa gaarsiinaya inaad isqariso iimaankaaga iyo aqligaaga ma ku sii kariyaa si isu qarina wanaagaad ba faafinaysaye yaa horta heerkaasay marayaan waa marka waxaan dhihi karaa inta nooga biirtayna laba qaybood ay isugu jiraan dadna waa dad aragtidooda iyo fikirkoodu gaaban yahay oo laga yaabo ama inay carruur yihiin ama inaan aqliyadooda dhammaystirnayn ay ku ajarmeen kuwa qaarna waxaan dhihi karaa waa kuwii caasi waalidiinta ayo hooyadood iyo aabbahood ku caasiye qof islaama oo iimaan leh oo bini aadana ma oggolaa kariyo mana aqbali kariyo hooyadaa iyo aabbaha ordo soo dib argagixisaduna waxay dadka ku asbaabiyaan waxaa waaye hooyadaa iyo aabbaha soo dil